You never get bored with Kabadai Films. كشعبكو صباحي عالراديو دادكونا هايكو عالو الفيوي عوقا بمدح وينكو على مسار كشعبكو صباحي عالراديو دادكونا هايكو عالو الفيوي عوقا بمدح وينكو على مسار وانكو عوغني مدح ويني وانكو عوغني مدح ويني علنكن كساري عينك نوهي علنكن كساري عينك نوهي مدحويني وانكو عوغني مدحويني علنكن كساري عينك نوهي علنكن كساري عينك نوهي الروي وعيرو لبا ايدي الكود بعاوي وعدليقا قد يغسي وعالمنا يمدح ويني عمريقا قديا الروي وعيرو لبا ايدي الكود بعاوي وعدليقا قد يغسي وعالمنا يمدح ويني عمريقا قديا وانكو عوغني مدح ويني وانكو عوغني مدح ويني علنكن كساري عينك نوهي علنكن كساري عينك نوهي مدحويني وانكو عوغني مدحويني علنكن كساري عينك نوهي علنكن كساري عينك نوهي Get connected with Kabadai Films and subscribe today.
maamulka dekada berbera ayaa ka hadlay xogii ugu horeeyay ee dekada berbera ka dhoofa tan iyo waqtigii xoolaha Soomaalida ay dalka Sacuudigu u ooda ka qaaday waxaana habeenkii xalay ahaa dekada weyn ee berbera ka dhoofay xoolo gaadhaya ilaa 3400 oo neef oo geela kuwaas oo tagi doona wadanka Masar shaqaalweynaha dekada weyn ee berbera ayaa ku hawlanaa habeenadii ugu dambeeyay ka shaqeynta xoolaha ka dhoofaya dekada berbera ee ku aadan wadamada Carabta waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay kana waramay xoolahan ka dhoofaya dekada berbera maariyaha guud ee dekadaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi iyo qaar kamid ah shaqaalaha iyo hawlwadeennada dekada weyn ee berbera ee ku hawlanaa xoolahan ka dhoofaya dekada weyn ee berbera waxaan dhoofinaynaa geeli ugu faraha badnaa insha Allah ee dekada ka baxa sida tiradiisaba hore loo sheegay taasoo runtii aanu fulinayno siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasaaradda xanaanada xoolaha annaguna aanu qabanayno service-kii caadiga ah ee dekada oo aan mar walba diyaar u nahay 24 saacadoodba inaanu hawl maalmeedkii caadiga ah gudanno awoodna aanu leenahay xoolaha ugu badan inaanu ka dhoofin karno dekada berbera mankaaniyaadkeeda iyo qalabkeeda inaanu haysano taasina waxay tusaysaa caawa in geela oo ah xoolaha ugu adag ee la saaro maraakiibta inaanu sida ugu dhaqsaha badan u saarayna alxamdulillaah rabbil caalamiin laba habeen buu marayaa xalay 700 baa la saaray caawna waxa la saarayaa 2721 hadii alla yidhaa waxaan aad ugu hambaleynayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi suuqyada cusub ay u raadinaysa mar walba ganacsatada Somaliland oo aynaan ugu koobnayn suuq u dhah cabsi waxaanu ka qabnay markii hore in ay yaraan doonaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka laakiin ilaahay mahadii way sii kordheen xoolaha iyo suuqa cusub ugu soo furnay geela dalka Masar suuqaas soo furnay madaxweynaha Somaliland العمل المصير إن شاء الله في سوق بدل كله سعودي ومال كله بدل حولها عمود فيه حوشان يكون الدولة إن شاء الله أيام كشغينا يضوا عن وماميرتيسا أدوهر قلنا إنه أنتي مدلي وحيلك اللي بدأ سندود هينا هرمر بلارن وكسمي جوال كان ساحل كارهان مرسدن بربران سلاد هذا واحد نعاونه أور كيان كورين يجيله وقال له وانا تلاليه تلا الله وقبا waxaan u gooshay uu tagay Masar buu tagay waxa sidaadaraadeen ku sheegay geeyaha caafimaadkiisa wala huba waqeel caafimaad qaba oo xul laga shaqeeyay oo la soo talaalay baax soo maray weeyaan xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo iyaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa sheegay in ay xoolaha Somaliland ay yihiin xoolo la caafimaadiyay isla markaasina ka baxay dhammaan bashuruudihii lagu xidhay xoolaha ka dhoofaya dekada weyn ee berbera ee tagaya wadamada Carabta ee ugu mudan yahay wadanka Saudi Arabia waxaana ay sheegeen in waqtigan dhaqdhaqaaqa dhoofka xoolaha si weyn looga dareemayo gudaha berbera ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in fursadaha dhaqan dhaqaale ee maartay iyo chance kana soo ilaahay inoo badiyo maarayaha dekadaha Somaliland oo runtii ah nin firfircoon dekadana wax badan ku soo kordhiyay runtii gobolkana guud ahaan maxay tahay qaybtiisa ka qaatay waxaynu joognaa marsadii weyneed ee berbera oo caawa runtii farxad weyn ay tahay oo ay ka dhaafayaan geelii ugu badnaa oo u baxaya dalka Masar oo hadda halan ka baxayo oo 3400 ku dhawaad tirada halkan maraysa ay tahay waxaanu filaynaa xoolihii kale insha Allah Sacuudiga noo furayna inay maxaan ku leeyahay dhowr maalmood gudahooda iyaguna ay ku bixi doonaan Muxtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland berbera